shirweynaha soo bandhigista xaqiijinta hanaanka dib u heshiisiinta qaranka oo muddo 3 maalin ah ka socday Muqdisho ayaa waxaa soo xiray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya si uu muujiyo sida dawladda Soomaaliya uga go'an tahay sidii bulshada Soomaaliyeed dhexdooda looga saari lahaa kala shakiga iyo kala qaybsanaanta yar ee ka dhex jirta si loo helo dawladnimo ilaalisa sharafta bulshada Soomaaliyeed. in dib u heshiisiin qorshaheed la keeno waxaa iyadana asal ka ah inaan soo dhisno wixii naga dumay saraha naga dumay oo aad aragtaan waxaa la mid ah qulubteena gudahooda inta ka duntay in halkaas laga soo dhiso ayaa la mid ah marka in saraha dib loo dhiso qof waliba oo Soomaaliyeed marka cid baa matasha cidda ku matasha marka hore waa inaad la xisaabtantaa cidda mustaqbalka siyaasadda kugu matalaysa waa inaad marka hore adigu ku qiyaastaa waxa halka aan ka sheegayseen inay u qalantay inaanay u qalmin cidda aad rabtaan inay miiska dhinaca kale idinkaga soo fariistaan si waxa aad sheegaysaan dawladnimada ah ay dalka ugu soo dabaalaan su'aalo adag in la isweydiiyay u baahan tahay dhaqankii ahaa marka dawladnimo ayaan meel kale ka sugaynaa annaguna waa iska fadhinaynaa wuxuu u baahan yahay in wax lagu daro waxay u baahan yihiin abwaanadu inay wax ku daraan oo gabdhuhu ay wax ku daraan oo culummadu ay wax ku daraan waxaan soo dhaweynayaa cid walba oo toosinaysa qarannimada Soomaaliyeed sheegaysa dhaliil wax lagu saxo rabta inay dalka dib u dhisto laakiin taasi waa inay ku saleysnaataa inay qabyaalad iyo musuqmaasuq ka madax bannaan tahay. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay shirweynahan waxayna ka qaybgalayaasha shirku ku soo bandhigeen aragtiyo wanaagsan oo lagu hirgelin karo in bulshada Soomaaliyeed si dhab ah u heshiiyaan kuwa lagu dari doono qorshaha diyaarinta siyaasadda qaranka ee dib u heshiisiinta sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta. waxaan idin ballan qaadaynaa wixii aad ku soo kordhiseen shantii qaybood oo shalay shaqeeyay inaan ku dari doono siyaasadda dib u heshiisiinta qaranka si ay u noqoto dokumenti rasmi ah oo lagu hago siyaasadda dib u heshiisiinta waddanka. dib u heshiisiin dhexmarta bulshada Soomaaliyeed ayaa ah mid xoojinaysa wadajirka shacabka Soomaaliyeed taasoo ku imaan karta in bulshada Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan inay meel iska dhigaan wax kasta oo wax u dhimaya wadajirkooda kobcinayana dawladnimada. in marka dawlad Soomaaliyeed la soo dhiso shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynayaa inay macquul tahay waxaa kaloo ugu bishaareynayaa inaanay jirin luuq loo soo mari karo si loogu laabto meeshii sharafta leedahay ka nimid lixdameeyadii waxay u baahan tahay dagaal dheer waxay u baahan tahay shaqo soo jeed u baahan waxay u baahan tahay dad daacada waxay u baahan tahay musuqmaasuqa laga fogaado waxay u baahan tahay in qabyaaladda laga fogaado waxay u baahan tahay in loo adeego sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed taasi si ay u dhacdo marka waa in haweenka Soomaaliyeed ay fahmaan isku duubnidoodu inay dawladnimada wax ku tarayso inay culimadu fahmaan isku duubnimadooda inay dawladnimada wax ku tarayso inay abnaawiniintu fahmaan inay isku duubnaadaan inay tahay qayb ka mid ah soo dhisidda dawladda in dhalinyaradu ay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii dawladnimada Soomaaliyeed in dadkaas Soomaaliyeed oo isku duuban ay fahmaan in haddii ay ka sogaan dawladnimada inay soo dhisaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo 275 xildhibaan iyo siyaasiyiin inay ka khaldan tahay haddii aad rabtaan wixii halkan laga sheegayo inay dhaboobaan waa in qof waliba uu qayb ka qaataa doorka uga aadan isaga ama iyada dawladnimada. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in waqti iyo fikir ay ku bixiyaan garab istaagga dhismaha dawladnimo Soomaaliyeed isla markaana ay meel iska dhigaan qabyaaladda iyo musuqmaasuqa
oo ah midda burburisay dowladnimadeennii. maxaa soo dedejin karaa inay dadka Soomaaliyeed midoobaan mar labaad? waa inaan aqbalnaa marka hore su'aashaas si looga jawaabo inaan fahamno waxa naga halaabay. waxaa naga halaabay wixii isku keenhayn jiray, waxaa naga halaabay wixii ceebteenna qarin jiray, waxaa naga halaabay wixii dumarka iyo carruurteenna u hiilin jiray, waxaa naga halaabay wixii adduunyada ku kallifi jiray inay noola dhaqmaan si sharaf leh, waxaa naga halaabay wixii dowladaha dariska u seegi jiray cidda aan nahay, waxaa naga halaabay oo naga dubay dowladnimadii. waxa aan u baahannahay inaan ka dhamayno marka waxay tahay dalkan dowlad xoog leh oo shaqaynaysa oo ummadda Soomaaliyeed ka wada dhaxaysa oo qabyaalad iyo musuqmaasuq ka madax bannaan in dib loo soo dhiso. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.